waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle lagu fariistay imtixaanka shahaadiga oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Iskuulka Imaam Shaafici oo kamid ah iskuulada ku yaala magaalada Jowhar ayaa ka mid noqonin iskuulada ay ka bilowdeen imtixaanka shahaadiga ee dowladda Soomaaliya ay qaadayso. TV-ga Africa Cable ayaa booqday xarunta iskuulka halkaasoo ay ku signaayeen ku dhawaad 70 arday oo isugu diyaarinayay in ay u fariistaan imtixaanka. hase yeeshee waxa ay sheegeen in lagu wargeliyay in aysan ka mid ahayn ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. waa kuwan ayaga oo ka hadlaya. arday kamid ah ardayda dhigtay iskuulka Imaam Shaafici Primary and Secondary School oo ku yaala dowlad goboleedka maamulka Hirshabelle State. anagoo gaarayna 70 arday ayaa inoo la diiday imtixaanka dowladda inaan u fariisano maanta oo sabti taariikhda ku beegatay 20 bisha May. waxaa caqabad ka qabnaa oo aan adeecaynaa wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabelle oo ina garab taagneen wax noo sameeyeen waxa kale oo qiyaamay hay'adda waxbarashada SAFE maamulkana waa laga qaban waay waana la hadli waana la qiimeey waay. anaga hadda waxaan diyaar u nahay inaan u fadhiisano imtixaanka dowladda maanta oo sabti hadduu dhaafo. waxaan kaloo waxa laga qabtayna wasiirka waxbarashada Hirshabelle oo iska jiifa hadda wuxuu joogaa iskuulka Ishaxanaaf ardayda imtixaanka uu fadhiisanayso ugu yaraan waxa fadhiisa 100 arday imtixaanka dowladda maanta fadhiisanayso. anaga iskuulka Imaam Shaafici Primary and Secondary School oo maanta anaga madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay arday aan wadanin shahaadada dowladda inuu laga aqbalay jaamacadda. waxaan adeecaynaa anigoo 12 sano inaan qarash ku soo bixinay waxbarashadani oo nagala qaway waxaan baaqirnaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya inuu wax noo qabto. aniga waxaan ku soo bixinay 12 sano lacag qarashan soo gelin waqtigaan dib u dhacay. waxaan baaq u diray madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu wax noo qabto. aniga qarashan anaga waqti anaga dhacay waxaan rabnaa inaan wax barano oo aan dalkan wax qabano. waxaan sidoo kale waxa laga qabto leenahay anaga isku duwan 70 arday wasiirka oo waxbarashada Hirshabelle Yuusuf Sheekh Bashar Diin oo ka tirsan iskuulka Imaam Shaafici Primary and Secondary School. waxaa saak u soo diyaar garownay inaan galno imtixaanka dowladda taasoo ka dhacay xarunta maamul goboleedka Hirshabelle degmada Jowhar. saak waxaana qabatay in nolosha imtixaanka idinka kuma jirtiin mana galaysiina taasoo u sabab ah wasiirka waxbarashada Hirshabelle iyo dowladda SAFE kuwaas oo qiyaamay waxaan cudurdaan nooga dhigay foomkiina mid diyaarsan iyo hadallo noocaas ah. foomka mar hore la diyaari waana la gudbiyay waxaan wax ka qawaay maamulka Hirshabelle. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan caadi ahaan aan ducoonayna inaan galiwaan imtixaanka dowladda. waxaan rajaynayaa in dadka kale ama ardayda kale ee dhigata iskuulka Imaam Shaafici oo san camaleed ku dhacaan. bismillaah waxa aad u xunaan anagoo 11 wax soo baranay aan shahaadada adan oo ahaysano aan bixi weyno dibadda shahaadada dowladda ayaa laga rabaa. macnaha arday badan ayaa jirta inay aad dibadda wax ku barato waxaan la xujeynayaa shahaadada dowladda. dowladda waxa aad u cambaaraynaa anagoo 12 sano wax soo baran inay tiraahdo wax ma bari imtixaanka dowladda ma fadhiisanaysiin. waxaana cudurdaarnaynaa dowladda SAFE inay wax noo qawoweyso anagoo dowladeeda oo hoos imaanana wax noo qawoweyso. si aan u naana ardayda Imaam Shaafici maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 20 bisha May waxaan u lahay imtixaanka dowladda magalaysa. dhanka kale maamulaha iskuulka Imaam Shaafici Ismaan Nuur Tifow ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay sababta ardayda looga diiday in ay galaan imtixaanka wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ay qaadayso. tan waa cilad timid waana sumcad xumo aad ayaan uga xunnahay wasaaradda waxbarashada ee dowladda lahayd in tiro inta la eg oo arday ah imtixaanaadkoodii lama qaadin la yiraahdo ama rool numberoodii ma aan soo gudbin xataa aan ku eedeyna cid nooga mas'uul ahayd in ay hawshaas qabato oo dowladda waxbarashada ee SAFE ayada ayaana keentay in isan ay noqdaan ardaydaas. waxaan rajaynaynaa tan anaga waa nagu dhacday laakiin ummadda Soomaaliyeed kale in looga fiirsado dowladda goboleedka Hirshabelle وزير كده وحبرشده
haddaa u gudbina xataa wuxuu ka qaban waayo ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala magaalada Jowhar ayaa maalmihii dambe u diyaar garoobayay gelista imtixaanka shahaadiga ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa, Jubba Shabeelle News, magaalada Jowhar.